maanta aan ku xuseyno maalintii xanaanada xoolaha ee adduunka inoo ka qayb qaadanayna waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa ka bacdi maanta farxad weyn bay ii tahay inaan hortiina soo istaago anoo idinle hal kelmadoo ah waxaan doonayaa maadaama wasaaradda xanaanada xoolaha qaybta fidinta adeega caafimaadka xooluhu ay tahay lafdhabarta wasaaradda in labada qaybood ee ah dhakhaatiirta xanaanada xoolaha iyo kalkaaliyaashooda iyo bahwadaagta muxuu ahayday xanaanada xoolaha sida muxuu ahayday organizationada iyo kambaniyada iyo jaamacadaha nagala shaqeeya horumarinta caafimaadka xoolaha iyo adeegyada bulshada loo qabto Happy World Veterinary Day. intaa ka bacdi maanta waxaan doonayaa inaan waaxaan kaga qayb qaadano warbixin yar oo kooban oo ah inaan doonayno saddex waxan in sanadka soo socda aad nala fulisaan inagoo garbaas qabsanayna kaasoo ah in caafimaadkii xoolaha dadka iyo deegaanka ama one health approach-ka inaad nagala qayb qaadataan si aynu caafimaad u helo dhammaantiin. ka labaad waxaa jira oo halkan fadhiya oo dhammaanteen inaga wada sarreeya kambaniyo keena dawada xoolaha keena oo vitboardkii hore muxuu ahayday veterinary boardkeennii hore oo registereeyey ku soo biiray oo aan weli register lahayn welina dawooyinkii keenaya iyagana halkan waa ku macsuulay aanay dawooyin kale waddanka aanay keenin. shirku markuu madaxdu inaga dhammaatona waan isku soo hadhaynaa dood dheer baynu gelaynaa sidaynu u promote garayn karayno one health approach-ka. ta saddexaad ee aan doonayno inaan uga faa'iidaysto waxa weeyaan hadday noqoto domestic animalkan inagu dhex nool ee eeyda iyo dameeraha iyo bisadaha ee maalin walba naloo keenayo oo la kulma caqabado ay kala kulmaan dadka ay haysta ama dadka kula nool deegaanka kula nool kaana in nalala promote gareeyo oo waxa ku taala muxuu ahayday promotion either can be diversity oo muxuu ahayday inclusive inay noqoto kaana inaad nagala qayb qaadataan baan doonayaa. dhammaan dhakhaatiirta waxaan halkan ka codsanayaa sanadka inay saddexdaa wax hadday shaqo ku jiraan iyo hadday muxuu ahayday aanay ku jirinba inay saddexdaa wax nala promote gareeyaan oo nagala shaqeeyaan. kambaniyada soo dejiya dawada iyo kambaniyada calafka soo dejiya iyo kambaniyada digaaga soo dejiya kambaniyada hilibka soo dejiyaba iyagana waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan. wasaaradda xanaanada xoolaha maamulkeeda sarena waxaan ka codsanaynaa inay wixii taakula aan uga baahano sida imikaba loo garab taagayiin iyaguna ay sii wadaan oo aanu sii labalaabno shaqada. halkan waxaan kusoo gabagabeynayaa maalin wanaagsan oo farxadeed ay idiin noqoto waanan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.